magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay musharax madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Caamir Xuseen. Soo dhaweynta musharax waxaa ka qayb galay siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, aqoon-yahano, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo mas'uuliyiin kale. Qaar ka mid ah dadka ka qayb galay soo dhaweynta musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Caamir Xuseen ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhaweynta musharaxa. sida aad aragtaan waxaan magaalada Muqdisho ku soo dhaweynay musharax madaxweyne Jubbaland mudane Xasan Caamir Xuseen iyadoo waxgaradka dhalinyarada, aqoon-yahanada, xildhibaanadii hore, wasiiradii hore iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ay ku soo dhaweeyeen. maalinta in ka farax badan ay tahay hadii dadka Jubbooyinka degaw ama sideen dhagno oo dadka oo danyarta iyo beeraleyda maalinta in ka farax badan ay tahay meel ay ka soo kulmay ulama u diin aqoon-yahano dad oo maasha urur dhalinyarada ururka maamooyinka haweenka maalinta may soo dhawaayeen hadda maashan gogol aan soo galnay musharax madaxweyne Jubbaland Xasan Caamir Xuseen oo wadankaas xaq in leeyo hatta hormud in leeyo dibyanka taliyayno oo dhulkaas oo dibna jeeysadayno ama dawladda Soomaaliya sidii rabta mana ka xalaaso Xasan Caamir Xuseen maalinta la fadhiyo Nairobi soo duuli hadda saak shan saamal la sameeyay hadda Muqdisho ka hayna maasha Allah mudan madaxweyne ku soo dhawaa kalena Soomaaliya waato Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa mahad iskale kulankan maanta aan meeshan ku soo munaasabaynay oo looga hadlayay musharax madaxweyne Jubbooyinka sagaalka gobol si ay u midoobi lahaayeen mujtamacoodana la isku xiri lahaay sida darteed Rabbi tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay is amar maqla isna ateeca ياشتا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء إلهينا رمايا رسولك سنا أطيعا أمر كان أوه جان سما أو متكينا إذن كمامل كإذن أو إذن كماملايا لما أنا وحنا هلكن كسلام يا قومية بيلها جرروينه جود أهان يجار أهان قومية دكوا أبتسام بقى عديجانا ده Jubbaland وحنا ما أنت أم أفردنا سودوين oo ku saabsan musharax madaxweyne ee Jubbaland mudane Xasan Caamir Xuseen munaasabada soo dhaweyntaas ay ka soo qayb galeen dhammaan ururada haweenka ee Jubbaland mudane madaxweyne garabkaagi magaalo cidla ma imaanin magaalo dadkaaga kaaga soo horeeyeen rag iyo dumar leh ayaa maanta soo imaatay waxaana filaynaa soo dhaweyntaada intan inay ka weynaato maadaama ayna garab taagiin ururada haweenka oo dhan isugu jira halkan waxaan ku soo dhaweynayaa musharax madaxweyne Xasan Caamir Xuseen anagoo ka hadlaayo ururka haweenka waxaana diyaar u ah inaan meeshan ku soo dhaweyno madaxweyne musharax Xasan Caamir waxaana diyaar u ahay inaan mar walba taageero u ahaan guud ah ugu dambeyntii musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Caamir Xuseen ayaa ka hadlay soo dhaweynta loogu sameeyay Muqdisho waxa uu u mahad celiyay dadka ka qayb galay soo dhaweyntiisa isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyay safarkiisa iyo sidoo kale qorshaha ku aadan musharaxnimadiisa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim dhammaan may salaame inta qofood oo macnaha maanta igu soo dhaweysay boorka Aadan Cabdulle Usmaan sida odayaal dhaqameedka salaadiinta xildhibaanada hore aqoon-yahanada iyo maamooyinka oo ku soo jeeda gobolada Jubbooyinka aad iyo aad u mahadsantihiin muddada dheer aad isugeyseen oo anigana jidka aan ku soo jiray aad ugu mahadsantihiin qorshaha ani hadda aan wado oo macnaha aan idinku soo gaarina waxa waaye dal jaceyl waaye anigu magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Caamir Xuseen Caamir waxaan ku dhashay gobolka Jubbada Hoose degmada Jamaame tuulo la yiraahdo Makalangow waxaan ahay nin Soomaali dhalad ah waxaan ku soo jeeda dadka beeraleyda ah waxaana musharax u ahay inaan madaxweyne ka noqdo gobolada Jubbooyinka taasna waxa igu kaliftay markaan arkay baahi badan inay jirto dhibaato badan inay jirto markii go'aan la gaaray 2019 dawladda federaalka iyo United Nations iyo beesha caalamka iyo dawladaha dariska ah markay go'aan gaareen ay dhaheen doorasho qof iyo cod ayaa loo baahan yahay waxaan ogaaday haddii aan macnaha isu soo taago gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Gedo inaan heli doono
midda kale waxaan dhihi lahay maamooyinka waxay adduunyada ku leeyihiin kaalinta ugu weyn adduunyada dadka laga qiimeeyo kow waxa waaye maamooyinka waaye waxaan idinka rabaa inaad garab ii noqotaan inaad garabkayga soo joogsataan haddii ilaahay nafta nagu simo haddii danaha ani aan leeyahay haddii ilaahay ii nasiibo waxyaalo badan oo isbedel ah ayaan rabaa inaan sameeyo isbedelka kow aan sameynayo waxaa waaye intiina waxaad ku dhalateen gobolka Jubbada Hoose maantana xero qaxooti aad waxaad u oodantiin xamar gudihiisa waxaad cunaysaanna ma haysataan waxaan rabaa haddii talida ilaahay gacanteeda ii saaro nin kasta inaan celiyo tuulada uu ku dhashay beerihiisa iyo dalkiisa inaan celiyo oo si dadkan hadda saraha ay ku jiraan oo kale inaad ugu noolaatiin haddii ilaahay nafta nagu simo taasna ilaahay igu tuuga waxaan kaloo rabaa haddii ilaahay nafta nagu simo waxyaalo badan oo dhibaato ah waddankaayna lagu sameeyay siiba annagana lagu sameeyayna inaan tallaabo weyn ka qaado haddii ilaahay nafta nagu simo sida beeraha la dhacay oo kale sida macnaha waqtiyadii gumaysiga oo kale dhibaatada nala gaarsiiyey oo kale sida boobka iyo kufsiga naloo sameeyay oo kale in caalamka uu soo da'awood si xaqiina aad u heshaan annaga ma rabno haddii aan nahay dadka ba'naha oo beeraleyda ama dadka jirarweyn loo yaqaano ama dadka baantuda loo yaqaano haddaan nahay inaan midi qaadano ama qori qaadano dadka guryahooda inaan ku tagno dildilno ma rabno annaga adduunyada waxaan ka qaadanaynaa qalan iyo af maama kasta ha u diyaar garowdo inaan aniga ahay musharax beri subaxdina anfici karo dhibaatada ay haysato maamooyinka haysata inaan ka bixin karo ha ogaato waxaan idinka talagalay inaan idin sameeyo muddo 2 beri 3 beri ka dambe shir weyn oo macnaha kan ka weyn oo aqoon-yahano ka soo qayb geli karaan oo ama ay ka soo qayb galayaan laga hadlaayo macnaha sida waddankeena anagana maamul aan ugu noqon lahayn lagu hadlaayo shirkaasaan qaban doonaa ilaahay qolkiisa waa maasantihiin shirarka hadda maanta aan qabanay taariikh 12 bishii 12aad 2020 maanta waxa way shirka la qabtay waa isbarasho anigu waxa way mar labaad idinku celinaya nin Jubbada Hoose u dhashay oo Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Xasan Caamir Xuseen waxaan ku dhashay tuulo la yiraahdo Makalango degmada Jamaame gobolka Jubbada Hoose baahida isoo saartay inaan madaxweyne noqdo waxa way inaad ka baxdeen moorada la idinku ooday talaabada labaad aan qaban doono waxa way aniga qabiil ma ku shaqeyn doono laakiin waxa way macnaha dadka hadda dhibaysan oo horteeda taagan waa dadkayga inaan wax u qabtaan raba wixii kalena waxaan ku soo sheegi doonaa kulamada dambe aan qaban doono wabillahi tawfiiq